بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفرنا لما تحب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay dunida dacaladeeda kala duwan ka joogaan waxaanu idin leenahay Ramadaan mubaarak ilaahay bashbash iyo barwaaqo ay nagu gaarsiiyo Ramadaanteeda waxaan idinku talagalnay barnaamij diiniya bisha Ramadaan awgeed insha Allah waan idin bilaabi doonaa walaalayaal maanta waxaan idin soo gudbi doonaa qisadii ama basiiradii nabi aadan ama aabihii ummadda alayhi salaam oo kooban insha Allah haddii Allah noo ogolaado alle wuu jiray iyadoo aan cid kale ku noolayn koonkan wuuna jiri doonaa abidkii ilaahay baana xumaan iyo nusqaan baa ka nasahan eebe wuxuu ugu horeeyay eebe abuuray waxa weeye carshigiisa muddo kadib eebe waxa uu abuuray qalinka eebe waxa uu amray inuu qoro qalinkii wuxuu yidhi eebo maxaan qoraa eebe waxa ugu jawaabay qor wax kastoo jiri doona ilaa maalinta qiyaamaha ka dhacayo wax kasta iyo siduu noqon doono iyo cirib dabeedkiisa waxaa la qoray 50,000 oo sano ka hor waqti kadib ayaa eebe waxa abuuray 7 cir iyo 7 dhul sidoo kale waxa abuuray buuraha badaha wabiyada meerayaasha qoraxda iyo dayaxa iyo dhulka dhammaan wixii ku guud jiray 7 dhul iyo 7 cir ayuu abuuray sidoo kale 7 cir iyo 7 dhul eebe waxa uu ku abuuray 6 maalmood oo kaliya inta kadib aynu galno aabihii ummadda ababa nabi aadan alayhi salaam qaabkii loo abuuray markii eebe doonay inuu abuuro nabi aadan naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu amray mid ka mid ah malaa'igtiisa inuu dhulka ka soo qaado ciidaas oo ka kooban midabo kala duwan amaba noocyo kala duwan tusaale ahaan midabka casaanka midabka madowga iyo midabka cadaanka sidaas awgeed ayay u kala duwanaadeen midabada ibnu aadanka sidoo kale waxa kala duwanaaday habdhaqankoodii iyo dabiicadoodii waxa la abuuray aadan maalin jimcaha waxaana gacmihiisa sharafta leh ku abuuray Allah ilaahayna gacmihiisu ma eka makhluuqa kale eebe ayaa xumaan iyo nusqaan baa ka nasahan oo ka dheere intaa kadib waxa ciidda lagu daray biyo waxaana noqday dhoobo saas baanu ahaa middo ilaahay og yahay kadib waxa isku dhagay dhoobadii waxayna noqotay mid adag muddo kadib dhoobadii waxay isu bedeshay mid egegtay oo waxay noqotay mid adag muddo kadib waxay inta ruuxda lagu afuufayay waxa uu ahaa dhoobo in muddo ah waxaanu dul meermeeri jiray malaa'igta iyadoo ka fakaraysa noolahan cusub sida uu noqon doono iyo mustaqbalkiisa sidoo kale waxa dul meermeeri jiray ibliis oo ka mid ahaa malaa'igta oo ka mid ahaa jinka ilaahayna karaameeyay oo sharfay oo laga maqaam dhigay malaa'igta waana intii aanu gaaloobin ka hor ibliis waxa uu galay aadan joofkiisii calooshiisii marna uu ka soo baxaa isagoo isweydiinaya talow arrintan noolahan cusub siday noqon doontaa waxaana ka muuqatay inuu xaasidayo iyadoo xataa aan ruuxdii eebe ku afuufin waxa eebe qadaray inuu ka afuufo ruuxda nabi aadan waxaana weeye bilowgii basharka waana mowqif aad iyo aad u weyn sidoo kale dhammaan malaa'igta xagga sare joogtaa way sugayeen maalintaas ilaahayna wuxuu amray malaa'igta iyo ibliisba inay u sujuudaan marka neefta lagu afuufo nabi aadan naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu nabi aadan ku afuufay ruuxdii waxaana naftii ka gashay madaxa iyadoo ruuxdii hoos u socoto markay ruuxdii maraysay sanka ayaa nabi aadan
hindhisay. malaa'igtii agtiisa joogtay ayaa ku tiri aadan ilaahay u mahad celi. waxaanu yidhi nebi aadan eebbe ayaa mahad iska leh. ilaahayna waxa uu ku yidhi eebbaha ku naxariisto. naftii markii ay gashay nebi aadan misena waxa uu fiirfiirinayaa dhirtii jannada iyo midhaha. ruuxdii waxay gaadhay caloosha, isla markaana wuxuu aadan doonayay inuu soo qabsado oo soo goosto midhaha jannada yaala, iyadoo aanay ruuxdii weli wala gaadhin jirhkiisii. sidaas awgeed ayaa eebbe waxa uu leeyahay dadka waxaa laga abuuray degdeg. markii ay nebi aadan ruuxdii gashay jirhkiisa oo dhan, waxa uu eebbe amray inuu u tago malaa'igta oo uu soo salaamo. waxaanu nebi aadan calayhi salaam ku yidhi malaa'igtii assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. malaa'igtii way ka qaadeen salaantii waxayna ku dhaheen wacalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. eebbe waxa uu nebi aadan ku yidhi taasi waa salaanta adig iyo ubadkaaga. eebbe waxa uu tusay nebi aadan dhammaan ubadkiisii oo dhan. maasha allah, ka waran duriyaddan nebi aadan ka soo bilowday ka ugu horeeya ilaa ka ugu dambeeya. eebbe waxa uu ugu ballan qaaday dhammaan duriyadda nebi aadan. waxaan u ballan ka qaaday dhammaan duriyadda nebi aadan. waxaanu weydiiyey waa kuma rabbigiin. dhammaantood waxay dhaheen rabbigaygu waa allah. eebbe ayaa waxa uu ku yidhi waxaan idinka digayaa maalinta qiyaamaha inaad tirahdaan waxaan ahayn kuwa mooganayaal ah. malaa'igta dhammaantood kulligood waxay u sujuudeen nebi aadan, naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee, marka laga reebo ibliis oo isagu ahaa aan malag ahayn laakiin ahaa jin. eebbe sharfay. ibliis ma uusan sujuudin, bal maxaa sababay? ibliis waa uu istaagnaa mana uusan sujuudnayn. waxa uu weydiiyey ibliis, maxaad u sujuudi weyday? eebbe hore waa u ogaa kibirka iyo isla weynida ku jirta ibliis. nacdalay dusha ka fuushe. ibliis waxa uu ku jawaabay jawaab aad u xaqiran. waxaanu yidhi ma waxaan u sujuudaa noole aad ka abuurtay ama aad ka samaysay dhoobo? aniga ayaa eebbow ka khayr badan oo waxaad iga samaysay naar. ibliis waa uu kibray, waanu isla weynaaday. waxaanu galay dembi kii ugu weynaa ee laga galo amaba lagu sameeyo samada korkeeda. ibliis oo indhihiisa ku arkayay in eebbe gacmihiisa sharafta leh ku abuuray nebi aadan amaba ku sameeyey, ayaa sameeyey dembi aad iyo aad u weyn. eebbe ayaa waxa ugu jawaabay, wuxuu ku yidhi ka bax jannada, waxaana dushaada ahaatay nacdal iyo cadhadii eebbe. naxariista eebbena agtaada way ka fogtahay, wayna kaa dheer tahay ilaa laga gaadhayo maalinta qiyaamaha. eebbe waxauu ibliis ka eriyey jannadiisa iyo naxariistiisa, waxaana laga saaray ilka iyo sumaynka eebbe ee koreeya. ibliis ma uusan dalban cafis in loo naxariisto, mana uusan toobadkeenin, ee waxaad la sii weynaatay xumaantii iyo xaasidkii naftiisa ka muuqatay. haddii uu toobad keeni lahaa, eebbe waa uu ka aqbali lahaa, laakiin waxa uu dalbaday arrin kale. wuxuuna yidhi eebbe waxaad inooleysaa ilaa inta uu qiyaamuhu ka dhacayo. eebbe waa uu ka aqbalay ducadii ibliis, isagoo ah ruux nacdal iyo naxariis eebbe ay ka dheer tahay. eebbe waxa uu ku yidhi waxaad ka mid tahay kuwa dib loo dhigay, macnaha ilaa qiyaamaha waad noolaanaysaa. eebbe waxa uu siiyey cimri dherarkii uu ibliis dalbaday. ibliis waxa uu ku yidhi eebbe maadaama aad dib ii dhigtay, waxaan luminayaa duriyadda nebi aadan, mana heli doontid dhexdooda kuwa ku mahadiya. eebbe waxa uu ku yidhi adiga iyo ciddii ku raacda waxaan ka buuxi doonaa cadaabta naarta jahanaba. eebbe waxa uu ibliis siiyey carruur fara badan oo u shaqeeya hadh iyo habeenba.
ibliis waxa uu ku dhaartay eebbihii waxaanu yidhi waxaan ku dhaartay sharaftaada iyo karaamadaada waa lumin doonaa ummadda nebi aadan waxaanu ku yidhi waxaan ka luminayaa dariiqa iyo waddada toosan eebbena waxa uu yidhi awooddayda iyo sharaftaydan ku dhaartee waan u dembi dhaafayaa intay dembi dhaaf i weydiisanayaan eebe waxa uu nebi aadan naxariista nabadgelyo korkiisa haatay waxa uu dejiyey jannada waxaanu cunayaa midhaheeda waxaanu cabbayaa biyaheeda eebe waxa uu ku yidhi jannada dhexdeeda kuma gaajoonaysid kumana haraadaysid kumana baahiyoobaysid nebi aadan waxa uu dareemay kelinimo waxaanuu yidhi maadiga oo keliya ee ku noolaanaya maalintii dambe ayaa nebi aadan seexday naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana hareertiisa uu ka helay ruux dumara waxaana ku yidhi waa tuma waxaana ku tiri waa ruux uu alle ka abuuray wuxuuna ii abuuray si aan kula noolaado oo aan nolosha kula qaybsado malaa'igtii ayaa weydiisay oo tiri magaceed waxaana ugu jawaabay waa xaawo waayo waxaa laga abuuray noolo kale oo ah nebi aadan waxayna muddo ku raaxaysanayeen nimcadii eebbe uu ku manaystay ee jannada eebbe waxa uu ku yidhi waxaad cuntaan dhammaan midhaha jannada marka laga reebo hal geed oo laga mamnuucay inay u dhowaadaan hadday u dhowaadaan waxay noqonayaan kuwo naftooda dulmiyey waxaad iska ilaalisaan ibliis oo idin cadow ah adiga iyo ubadkaagaba nacdaday dushaa ka fushee waxa uu dhalafaray nebi aadan iyo xaaskiisa xaawo kumuna odhan waxaad caasidaan ilaahay ee waxa uu u adeegsaday qaab kale oo uu rabo inuu ku khiyaameen waxaanu ku yidhi ilaahay waxa uu geedkan idinka mamnuucay inaydaan noqon malaa'ig miyaydan nebi aadan iyo xaawo aydan jeclayn inaad noqotaan malaa'ig dhammaanteen waan wala jecelnahay inaan noqono malaa'ig ayaa uu ku yidhi haddaba geedkan cun haddii aad cunto weligaa dhiman maysid jannadana waad ku waaraysaa nebi aadan oo ma rumaysan ibliis balse waxa uu dhaartay ibliis nebi aadan waxa uu cunay geedkii xaawana sidoo kale way cuntay nebi aadan iyo xaawa markay geedkii cuneen nebi aadan ma uu islahayn noole eebbe uu abuuray ayaa been ugu dhaaranaya magaca eebbe markay nebi aadan iyo xaawa ay geed ka dhadhameen ayaa waxaa muuqatay cawradoodii waxaana u kala yaaceen jannada waxaana isku dabalay caleemihii jannada eebbe waxa uu la hadlay nebi aadan iyo xaawa wayna ka shaleeyeen dembigii galeen waxayna ilaahay ay weydiiseen dembi dhaaf eebbena isaga ayaa weyn oo waaxida waa uu dembi dhaafay laakiin eebbe waxa uu qadariyey in nebi aadan iyo xaawa iyo ibliis ay u degaan dhulka intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa siiradii amaba qisadii nebi aadan calayhi salaam haddaba daawado haddii aad ka mid tahay dadka ku xidhan channelkan like star view samee iyo share haddii kalena dadka cusub tahayna subscribe samee sharna samee si aad ula socotid qisooyinkan aan soo dhigi doono bisha Ramadaan iyo kuwii horeba u socday insha Allah taala